السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالكeenan waxaynu kaga hadli doonaa 6 dardaaran oo inooga tagay sheekhi weynaa Sheekh Abi Cabdiraxmaan As-Sulmi. Dardaaranka koobaad ee sheekhu inagula dardaarmay waxa weeye waalidkaaga adeec. qaala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri anishkur li wa liwaalidayka ilayya al-masiir. Allah subhanahu wa ta'ala markaad u mahadnaqdo waxa ku xigay inaad waalidkaaga u mahadnaqdid. anishkur li ba Allah subhanahu wa ta'ala yiri aniga ii mahadnaq wa liwaalidayka iyo labadaada waalid oo mahadnaq ihsaanka ay ku sameeyaan إلي المصير صون نقشة حاجة يقوم بها تاني نبينا عليه الصلاة والسلام وحل ويديو قفك كوغم مضندتك إن دوناجي سواكما نبي عليه الصلاة والسلام وحوكي علي صدح جير قال أمك قال أمك قال أمك 3 مرات بولي مرة وحولي ثم أبوك طنع أبها مركا كارين وين أيين إيجا جيران إلى الوالد كان أضيعنه aynu hadalkooga maqalno. Dardaaranka labaad sheekhu waxa uu inoogu dardaarmay xinaanu xiriirina qaraabada. Maxaa yeelay qaraabada oo la xiriiriyo waxa kuugu barakoobaya cimrigaaga iyo risqigaaga. Waa ka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ku lahaa man ahabba an yubsada lahu fi risqihi wa yansa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Marka qaraabada inaanu xiriirina waa muhiim weeye. Dardaaranka saddexaad ee sheekhu Allahu naxariistay inoogu dardaarmay waxa weeye akhlaaqdaada wanaaji. maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu Mucaad bin Jamal u diray Yaman wuxuu ku yiri yaa Mucaad ahsin khuluqaga yaa Mucaadow akhlaaqdaada wanaaji shayga uu culus ee yawmal qiyaamah miisaanka la saarana waxa weeye waa akhlaaqda wanaagsan akhlaaqdaadu oo wanaajiso faa'iidadaas oo dhamay ku keenaysaa. Dardaaranka afraad u kaalmee qofka ku kaalmeeya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku lahaa fa inna allaha fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi al-muslim. Allah subhanahu wa ta'ala uu kaalmeynaya adoonkiisa inta uu u kaalmeynayo walaalkiisa muslimka ah. Qof walba oo kaalmo u baahan u kaalmee oo garab istaag marka uu dhibta iyo arimaha adag ku sugan yahay. Dardaaranka shanaad ee u dambeeya walaalka ceebihiisa khashifin man satara awrata akhi satara Allahu awratahu fi dunya wal aakhirah. Qofka astura ceebaha walaalkii Allah subhanahu wa ta'ala yaa asturaya ceebihiisa adduun iyo aakhiro. إن شاء الله تعالى إنك فايدة دردارنك الله أنا نقدر كوي كودقما كنا إلاليا هذه الشر إنت بين درسك نقصو كوبينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.